بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliland ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland ciidamada degan jiida hore saaka waa bariga dagaalkiina hadda uu socdo. waxaan u sheegayaa qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen jooyinka laga soo wareegay guulaha taaban karo oo ay waliba hubna ka furteen shabiye la difaaciyo. caalamkana waxaan u sheegaynaa in saddexdii bilood oo u dambeeyay 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaan ku soo rideen ciidamada federaalka ee Soomaaliya ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda iyaga oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir intaana waxaan ku jiray oo cid walba ergaaba hadday qaramada midoobay cid ka socoto tahay hadday tahay dawladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxay nagu waanayaan dagaal ha laga fujinaado intaaba nabad baan u taageerayo waa hadal wayse ka maarmi waayna soo weerar waxaan u sheegaynaa ragga saakana soo weeraray inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay afoonay oo aabahooda waxaan u sheegaynaa inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay kuwa axmoodayaan Morgan iyagana kuwa soo qaadeen waxaan u sheegaynaa inayna soo xusiyo dagaaladii 30 sano ka hor dalka ka dhacay iyo wixiina soo maray dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa oo aan ku boorinayaa inay iska taageeraan ciidamada qarankiisa oo dalkooda daafacaan meel ay joogaanba. intaas oo warkii waxaan halkan ka hambalyeerayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed gudaha madaxbannaanida Soomaaliland. madaxweynaha hore Daahir Yaale Kaahin madaxweyne ku-xigeenadii hore shir guddoonka labada gole gudoomiyaha xisbiga Wacid mas'uuliyiinta ka joogta xisbiga Wadani mas'uuliyiinta axsaabta qaranka oo dhan wufuudda caalamiga ah ee ka yimid daafaha adduunka dalalka Ethiopia, Kenya, Uganda, Finland, Norway, Britain, EU iyo Mareykanka. waxaan si gaar ah ugu soo dhaweynayaa mas'uuliyiinta ka socota dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia oo wafdi culus ka yimid oo aan saaxiibtinimo wanaagsan iyo qaraabe iyo dadnimo dhowreenahayna aad iyo aad si gaar ah soo dhaweynayaa. waxaan soo dhaweynayaa safaaradda Djibouti safiirkooda safaaradda Ethiopia Turkey hay'adaha qaramada midoobay ee nala degan halkan aad iyo aad soo dhaweynayaa maanta nagala qayb galay xafladda. walaalayaal waxaan hambaliyay bogaadin u dirayaa aan la soo koobi karin dhammaan shacabweynaha Soomaaliland ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda daafaha adduunka ku sugan. waxaan si gaar ah u bogaadinayaa maseexdayaasha lagu seexdo halyeeyada aan fadhiin een harsan ee had iyo jeer degan surin colaadeed iyo saymo si ay u daafacaan dalkooda. waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeena kaalinta aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiina iyo dadkiinu wuu idin ogsoon yahay taariikhdana way ku jirtaa waana idinku xusuusnoo doonaa intay Soomaaliland jirto. maanta oo kale 27 sano ka hor shacabka Soomaaliland waxa uu ugu suntan yahay maalin milgo miisaan iyo maamuus culus leh. waa maalintii ay dib ula soo noqdeen una xasladeen qarnimadoodii luntay. waa maalintii ay dib ula soo noqdeen xornimadoodii ka dhacantay oo u dhacantay laabxaadnaan iyo xog la'aan iyo xiise Soomaaliyeed ee seejisay gobonnimadoodii. waxa hubaal ah oo aan caad saarayn in Soomaaliland halgan dheer oo hayaan dheer kadib ah ay ka soo kabatay intii kadeed mudatay maantana ay ku naaloonayso xorriyaddeeda iyo calankeeda. walow maanta ay weli Soomaaliland intay hadal iyo cunaqabatay iyo siyaasad dhaaftay ay dagaal qaawan u soo qaaday. Soomaaliland waxay leedahay taariikh fac weyn boqolaal sano jirtay. waa maxkamada Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska halka ay Soomaaliya ka ahayd gumaysigii Talyaanigu haystay markii dambana ahayd loo dhiibay wixii looga jiray Taraskiibka ee Talyaaniga. walaalayaal 18 May kumay iman hadiyad layna siiyay balse waxaa ku timid dhiigga halyeeyada burbur dhacan xoolo wixii ay dalkan boqolaal sano soo dhaqanayeen gobol agoon weer ayay ku timid maantana hadday soo weerareen intii in leeg iyo in ka badan baan u hoornaa.
sideed كمي ومنه قوان كي تاريخها كسو بحيش وينه كتشيك السومالي لان مقالة برعو كل يسقال بقول يكوي سكاشنكي وقوان كي ساحر صلادين قرادو قومتي يا عقال يا سياسيين سويبي برعو يقول سكر ما قبل الأوردر أول الصحيحي ولا ريال صارت كان حسك مناديب مناصرتها ستيتون كمي وحكوسهم باقي حلا يمكسوا بحري دورشوي يترتر صاحب تنمو وحوالها إن جوش مربط قفاعه ساس نواس صنها نورشة يترتك شعب كسومالي وحن لا هاي ولا ريال كرسي صدح حسبي مو فريسان كلام صدح قفنا مو فريسان كلام بل سوحا إنه دير كلام وأنه فريسان كلام دلكينا إنه أمضى وأول قلتر قرنكين وحن نسمى الوضع نوران كرنا استعايل احترام سنان عدالة ما أنت وحنوحي مدحوينه كي دورتي يسا كي وحعوديي صاحب الذي كريت ارتبعي واسو كمير ولا بس مالي لا وحق حقوق موسم محاي نوقف سومالي قضينا ما يجب ريد السومالي ألما هدي هيان دير يهي بلا قيحان يهري آن هبين كالذين حوشا قرنكا وحي مسوه إلي قولوا هاوي waxaan u mahadnaqayaa odayaashii halgamayaashii siyaasiyiintii waxgaradkii haweenkii dhallinyaradii nafta u soo horay xoreynta dalka dhismaha dalka nabadaynta wadajirka dhismaha hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha iyo hay-ad kastoo dalka waxutara waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa madaxweynayaashii dalka soo hogaamiyey oo ugu horeeyo allah u naxariistee cabdiraxmaan axmed cali tuur madaxweyne maxamed xaajilaahir cigaal allah u naxariisto mudana madaxweyne daahriyaale kaahin oo nasiib wanaag maanta inala fadhiya madaxweynaha axmed maxamed axmuud silaaniyo oo isaguna dhowaan kursiga baneeyey oo ku sugan aragay ingiriiska maanta iyo odayaasha guurtida iyo golayaasha wakiilada oo sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar ugu horreeyey iyo ku-xigeenkiisa axmed nuur furre iyo odayaashii badnaa ee guddoonka la qaybsanaya kuwa dhintay iyo kuwa noolba iyo golayaasha intiisoo hogaamisay oo dhan oo ugu dambeeyey hogaamiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro dhammaantood waan ugu mahadnaqnaa kaalintii ay soo qaateen iyo kuwa noolba muddadii uu jiray qarankani wuxuu ku tallaabsaday guulo aada u waaweyn waxaanu ka heshiinay dhammaan xorgufooyinkii siyaasadeed iyo dhibaatooyinkii dhexdeena ahaa waxaynu nabadgelinay markii dalka aynu soo galnay 100,000 kun oo qaxooti ah oo dalka Ethiopia jaarkeena 7 laga soo bixiyay dowlad deegaanka Soomaaliyeed u badnaa oo dhammaantood inaga oo dhaqaale iyo awood hayn aynu si nabadgelyo ku gudbinay waxa aynu samaynay inaynu ciidamadeennii kala duwanaa ee qaarkood uu isku diray cadawgii siyaad barre iyo kuwii SNM soo galay oo dhammaantood hubaysaa oo inaan dhaqaale u ahayn inaynu hubka ka dhigno oo aynu qalamayno oo ay maanta iyo kuwa jiida hore daafacaya iyo kuwa wuxuu daawanayseen ilaahay mahadi baynu horgashay iyadoo cidina naga caawin waxaynu dib u dhisnay dhammaan hay'adkii maamul ee dowladnimo maanta Soomaaliland waa qaran 7 tirsaday oo leh dal calan ciidan cumlad cudud iyo cuud aan la soo hawaysan karin oo aanu inna aan ku dhiran karin walaalayaal waxaynu dib u dhisnay una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha dalka waxaynu yagleelay oo aynu hirgelinay dastuur qaran oo ay u codeeyeen 9 boqolkiiba dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu dib u hirgelinay dhammaan adeegyadii caafimaadka bulshada sida waxaynu hirgelinay waxbarashadii caafimaadkii biyihii kaabayaashii dhaqaalaha waxa ammaan iyo bogaadin aan u dirayaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ku hawlanaa dhammaan hawlaha qaranka u qabsoomay hadday wasaarad yihiin iyo hadday hay-ad yihiinba waxaynu dalkeenna ka dhignay dal dimuqraadi ah oo leh axsaab badan oo tartanta isla markaana qabsaday doorashooyin xor iyo xalaal ah kuwaasoo mararka qaarkood aynu dal ahaan horseed ugu nahay dhammaan qaaradda Afrika iyo mooyaane waxaynu soo jiidanay maalgashi shisheeye iyo saaxiibo dhaqaale xoog leh
كبلاريا وكأمن دلكينا كنا عصرية دكدينا بربلا كراهي دقالهينا كأمنا دقالها انت لغير سوانا سوقريا ولا ليال سومالا الواحد ما انت مريسا مرحلة آن لو بقي وحانو شيقنا عدو ييقا ما انت شانية توانك المي وحانو قعنا كوهايرنا دفاع الدلكة وكجت كتشبنا عدو رسول الرئي قعنا وحانو قد بالدقنا قرن مضيضة والعود إذا أخيسا عالمك وحانو شيقنا إيا شاركة دلكة شاركة هايبا سومالا توكسر ميسو بريوتا ميسو ويترتا ميسا هداي تهي نقالة هداي تهي سياسة يا هداي تهي أمانك درقبا ولا ليا اللي باتوي كان أشتبه حكمنا سعر برك وحا درين حنون بضن نوها يا حكومة الله يا شعبي هابا اللي باتوي هو جيستو لما دعا شركة سومالا تدوينها ضيرتها أنا قو أرنتاك دورينا وحا مقارني تلاقوي وحقورة يد دال بضن سيدي لو تشبين لها سعر بركة إلهي المهدي مالتا وقولك بلابيتها أيوه وصدعي وأنا سيس عمرنا إن شاء الله وأنا نسيوه لنا دقال كاس ولا ليال كماردرينتا هميقا إيجيسيكا قرى كيرنو ومدنات الكوباد إيسي أهداء رماها الدبادة إيسي اعتراف عالم كيروه الله تيرك الكوباد إيسي أهداء رماها الدبادة ونبض كوضا وشاها دمان عالم كوضا يدري سوناكا قال كيرو شاركا معي تيرك اللبات وإن إسكاش لو لا يشو ذلك الدرسكا dhinaca ammaanka dhaqaalaha horumarinta iyo wax wada qabsiga tiirka saddexaad waa is-ixtiraamka iyo xaq dhowrka xuquuqda qaranimo ee dal waliba uu leeyahay xuquuqda bini'aadnimo ee qofka iyo horumarinta nolosha bini'aadmiga waxaan u sheegaynaa dhammaan caalamka oo dhan inaanu ictiraafka ku helayno waxaanu qabsanno in ay dowlad wal iyo qof walba noo baahdo oo aanu isu baahno ee aanaan ugu tegaynin baryo iyo naaquuso walaalayaal Soomaaliya ilaa 1960 maalintii la midoobay isla sanadkaa gudihiisa baarlamaankii Muqdisho joogay waxa uu hirgeliyay iyada oo aan waxba isweydiin sharci ahaa midow oo aanay kaba qayb gelin xildhibaanadii Soomaaliland ka tegay dhammaantood waxa iska deedifeeyay go'aanadii 17 Juun uu gaaray baarlamaankii Soomaaliland ee daarta iminka maxkamadda sare uu gaaray ee ahayd shuruudaha lagu midoobay khilaafkii maanta dhashay wuxuu keenay dhimashadii ugu horeysay December 60kii markii saraakiishii bilaabka isku dayday lagu dilay Maxamed Suleymaan ilaa maalinta dilka laga bilaabo ilaa saakada aynu joogno waa loo dil iyo weerar iyo burbur ay lagu hayso Soomaaliya waxaan ku talinayaa inaanu bilowno jawi nabadeed inagoo ah laba dawladood oo walaalo isku dhow oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii aan taa ahayba waa culaad joogto ah iyo khasaare gudaheena ah taas oo sheegaya qolosada waxaan cadaynaynaa bulshada caalamka inay Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxayn jireen wax aan u ka dhaxayn jiray qarannimo la isku afgaran waayay la isku dilay oo duntay waxaan u sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad waxaan u taaganahay nabad waxaan doonaynaa horumar ma doonaynaa dagaal waxaas naga badana ku yar iyo ku weyn haddii nala soo doonto oo dalkayga la fargeeyo in colaadaas ay noqoto tu lagu gubto oo in badan socota ilaa halkay gaaray walaalayaal dhibaatooyinka qaranka hor yaala waxa ugu waaweyn qaadka oo khasaaro ba'an oo dhaqaale iyo mustaqbal ku haya oo aynaan runtii istareysiinin waxa ka mid ah qabyaaladda iyo kala qoqobnaanta oo maalin walba ay dhacdo beera isdila oo dilkooda waliba imanka sida cadawga sida loo taga bato walaalayaal dagaalka ka socda meesha la yidhaahdo ceelfooy oo soo noqday dawladdu waxa ka go'an inay ka qaado tallaabo dawladnimo oo ay soo xidho gacanta ku soo dhigto qof kasta oo nabadiida waxaa ku sugan sanaadka wasiirka daakhiliga iyo ciidamo xoogan oo hawsha aan baryeyn oo aan ku waanayn waxaa la yidhahaa mahadiya in ku dhow 50 qof oo hubaysan oo ka dhigeen
in laga soo xidhay ceelaf weyn oo ay habeen hore u gudbeen buurana kuwa lasoo wadaan waxaan u gudbi doonaa sayra odayga taajirka inanka inanta ka dagaalka ka qayb qaata ee fidmawalaha gacan dowladda ku qabanayna waana inoo go-aan waana isku raacsana waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka sanaag inay ka qayb qaataan dirinta colaadda ay wax magaratada iyo dadka fidmawalaasha abuuraya waxaan baaq gaara usii jeedinayaa magaalada ceergaabo meeyarkeeda iyo odayaasheedu waxyaalaha ilaa shalay ka dhacdhacaya inay ka howlgalaan waa arrin naxdin leh in magaalo weyn oo ceergaabo oo kala ah inamayr qoyama soo galaan dad xabadurta ciidamadu way ka howlgalayaan way heeg magaalada waxay ka dhigeen baldow welina xoog bay ku hayaan laakiin waa in la soo qabtaa fidmawalayaashii xabadaha reedi oo la isugu taray waxaan kusoo gabagabaynayaa maanta waa maalin mudan inaynu xusno oo dhammaantaan isambariyeyno oo aynu qarnimadeenna dabaaldegeeda xoojino oo xusno wixii loo soo maray iyo mustaqbalka ifaya aynu doonayno waxay noo ballana difaaca qaranka iskotashiga inaynu midowno oo qalbiga isu furno oo aynu mid noqono si aynu iska dhicinno dagaaladaynu u socday cadowgu hayo faraha badan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu